dhalinyaro cimrigu waa wax yar cimrigaaga qayb ka mid ah tuuri waqtigaagu yuu kaa dayacmi waa cimrigaagii adigoo aan lagaala tashanba dunida lagu keenay markaad ka baxaysana cidi kaalama tashanayso intaa yar baad joogaysaa markaa labadaa u dhaxeeya imaatankiina lagama talagelin tegisteedana lagaa talagelin maayo se intan yar waxa lagu yidhi bal adigu ikhtiyaar laho oo wax samee intaasaad joogaysaa kooban oo maxay ah 50 sano 20 sano 60 sano 70 sano qofba in aanu garanay intay noqon intaa yar waxa lagu yidhi laka alxurriya intaa yar ayaa lagu yidhi ba aakhirana lagu xisaabinaya intaa yar baad mubtala tahay intaa yar maxaa laga rabaa markaa inaanay lacib iyo lahwi iyo orodkaaga lumin markaa waqtigaagu ama adduun midhaha ka dhalinayo anfac ku leeyahay ama aakhira anfac ku yeesho labadaa waxaan manfac ku lahayn iska dhaaf dadka waxa u dhaxeeya waqtiga siday uga faa'iidaystaan ninka dhalinyaranimadiisa invest garaysa markaa istithmaar maalgashi ninka dhalinyaranimadiisa maalgashada waqtigan ka warramaya waqtigaagaad waxaad ku maalgashanaysaa aakhira iyo adduunba wuxuu noqdaa dunida dan dadka faa'iidsay somaydan maqal hebel baa succeeded buu noqday naajix ninkaa hebel weeyaan macnaheedu waxa weeyaan markuu dhallinyarada ahaa buu si fiican u dadaal wuu soo daalay markuu dhallinyarada ahaa midhihii buu hadda guranaya waqtigan markaa waxaa u baahan tihiin inaad xoog uga fakertaan waanay cayaarida kaga lumin imika waxaa laga yaabaa marka aabba ama hooya ku tidhahda wax akhri inaad wax akhrido intaa yaroo aad u arkayso qasab inay tahay wax badan keeni mayso inta midhaha keentaa waa inta adiga kaa soo go'da waa markaad adigu dareento waqtigaaga inaad u baahantay inaad ka faa'iidayso inaad wax ku barato cilmi ku barato cilmigaa doontana waad baran karaysa laakiin wuxuu u baahan yahay in waqti iyo juhdiya in la geliyo haddaad maqasho nin baa caalim noqday nin baa khabiir noqday nin baa ka noqday dadka miyuu ka waqti badnaa maya intan dadku haystaa unbu haysta 50 iyo 60 iyo 70 unbu jira laakiin intan buu isku dayay inuu sida ugu fiican uga faa'iidaysto cimriga aynu ka warramaynana waxa ugu sii fiican kana ku jirtaan waayo kana adiga ku jirteen dhalinyaranimada waxay yidhaahdaan waa cimriga aan cidi kula lahayn marka